dhawaad akhyari maanta bishu waxa weeyaan 22ka bisha labaad 2022 waa taariikh unique ah oo qaas ah oo maanta dabcan dib loo arki doono halka aad naga dheehanaysaana waa caynta show iyo caati media fadlan si share gareeya qodobadeena maanta qowanaha aan ku soo qaadan doono oo goosgooska ah ee maalinlaha waxa koow ka ahaan doona tacsiiman u dirayaa sheekha qoyskiisa maanta lagu qarxiyay magaalada Kismaayo Sheekh Cabdinaasir waxaan leeyahay maarata sabar iimaan Allah naga siiyo umada Soomaaliyeed qoyskiisaba sidaas la mid ah ninka maaragta haduu la ku roon yahay asagiina eebe naxariistiisii janno ha ku galadaysto inta markaan tacsiida uga soo gudbo waxa ayadoo sidoo waxaan soo qaadan doonaa qodobka ah waxaan ognahay maalintii shalay ee bisha ahayd 22ka in lagu soo gabagabeeyay dir waqooyi xildhibaanadoodii in lagu soo gabagabay magaalada Muqdisho oo walba ay ahayd deegaan doorashadoodii xildhibaanada aqalka sare ee golaha shacabka markii la isku daro labada golaba waxay isku noqonaysaa tiradooda ay noqonaysaa 57 xubnood 12 aqalka sare iyo 46 golaha shacabka ah ayaa maaragta quwadooda waxay ku soo bandhigeen hotel Dikale ayagoo xalfad ku qabsaday hogaamiyahana uu yahay ninka la yiraahdo Mahdi Guuleed oo ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka halka waxa xuduudooda waxay ku sababtay u soo bandhigayeen banbax u sameynayaan waxay ahayd in 40 kamid ah xubnahaas 57 ah in farmaajo la jeel yahay ee la jeel yihiin oo farmaajo codadku ku xisaabtamay ay yihiin halka sidaas la mid ah maaragta dad la ku roon yahay uu ku soo bandhigay maaragta ragii kalena oo ku soo bandhigeen maaragta dad la ku roon yahay ay ka muujiyeen midowga musharaxiinta ama dadka kale oo sharaxanba halka walaac ah in maaragta guul darro hordhaca ee halka ay maaragta ay ka muujiyeen kana qaateen maaragta qodobkan halka aan dhigno waxaanu sidaas la mid ah qodobka saddexaad aan ka dhigaynaa ninka la yiraahdo maaragta Putin oo madax u ah hogaamiyaha Russia ayaa xalay qalinka ku soo duugay dhulka uu ka qabsaday ama gobolada labada uu ka qabsaday 2014 dalweynaha ama dalka Ukraine waxaan ognahay waayahanba inuu u digidam lahaa sidoo Ukraine u qabsan lahaa asagoo maaragta ka gilgishay kadib markii Ukraine ama Yurubtaba ama Greer galbeedkaba ay yiraahdeen waxaan ku daraynaa ururka maaragta NATO ee ayagu ay leeyihiin sidaas la mid ah asagoo ka baqay dabcan dii mar NATO lagu daro waxay noqonaysaa inuu la soo dhigo gantaalaha casriga ah ama maaragta hubka culus oo Mareykan iyo reer Yurubba ay soo dhigtaan halka isagana waa la daris xalay markuu saxiixay isla xalay galinkii dambe intii la hurday ayay maaragta ku dhaqaaqeen maaragta labadii gobolna maaragta dad la kuuriyay ka dhaxbaxeen si ayagu maaragta u sii socda dhanka iyo Ukraine hadii maaragta dabcan madaxweynaha Ukraine ninka maaragta koomikista ahaan jiray ee hadda madaxweynaha Ukraine ee loo doortay ayaa wuxuu maaragta u dalab ah wuxuu soo jeediyaa ama hadal ah waxa laga soo xiganaya inuu yiri wada hadal inuu ka dalbaday madaxweynaha Ruushka isagoo dabcan la rajeynayo in madaxweynaha Ruushka maaragta dad la kuuriyay oo ninka qaabilo halkaasna ay baasho ku soo xasilnaato saate fikrad ahaan oo my opinion ahaan